بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، وجامع حسن محمد جامع شاعر waxaan caawa halkan ku duubayaa caawa ay taariikhdu tahay 5tii bishii 12aad sanadka 2018 maansa gaaban oo magaceeda la yiraahdo manhaj. maansadan aanu bixiyay manhaj waxay ka hadlaysaa manhajka ahlu sunnaha ayay ka hadlaysaa iyo waxa uu ka qabo xukaamta muslimiinta ah sida loola dhaqmayo. gabaygani waxa uu jawaab u yahay gabay uu tiriyay nin la yiraahdo Abwaan Guuleed oo magaalada Hargeysa degan oo dhawaan tiriyay gabay uu manhaj u bixiyay. gabaygaas oo aad iyo aad ugu aflagaadeeyay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland meel ka dhacna uu ku sameeyay isaga oo mala awaalay tix uu yiri madaxweynaha ayaa yiri oo Muuse gabiyay. tixdaasoo markaad guniya baareegto isugu soo ururaysa shay muharrama oo diinteenu reebtay. marka koobaad waa been, marka labaad waa hafriinyo oo qofka muslimka in la hafraa waa xaraan, marka saddexaad waa khuruuju cala al-aimma oo madaxda muslimiinta in lagu baxa xaraam weeye. marka la soo ururiyo tixdaas waxay noqonaysaa alif la kordhabay, alif la hoos dhabay, alif la goday baynu maqli jiray. waa xaraan la kordhabay oo la hoos dhabay oo la goday diiniyan. habdhismeedkeeda suugaameed waa nin abwaano waa dhisan tahay maansadu, wayna macaan tahay marka loo eego dadka aan shareecada aan tixgelinayn marka la eego. laakiinse marka diiniyan aan ku miisaamay waxaa soo baxday inay xaaraan maqdaca tahay. sidaa darteed baan radin sharci ah uu maansadaydana ay tahay radin sharci oo aan maansadan ka dhigay radin aan ku radinayo in la isradiyana waa sharci. marka maansadii haddaynu bilaabano waxay ahayd sidan: indhaweydba waataanan marin mahadha suugaani ma macnaynin waayadan tixiimuuna dalahaaye munkar baan arkaye maansa gabay maamka kuma hayni aan miskeedo caawana godkaan mihindisoonayo. muqnigiiyo minhaajkiiyo sunnada balaan ku miisaamo maaliyad waxaad leedihiyo moodka iyo noolka, maaliyad waxyaad dhaqdiyo moodka iyo noolka, ama maahir geel iyo lo iyo adhi malaayiine hadduu maalka kaa meersaduu maqalla kuu reebin, ama uu mareegaha furaad caydh la malandaado misna weliba maa kuugu daro jeedal kugu miiso maqalo addeec buu ku yidhi mudanaheenniye. mar hadduu salaadaa tukado waa mas-uul qarane adna mala awaal iyo gaf baad mihindisaysaaye. maxsharkii qiyaamaha markii mawle la hor joogo makhluuqaad dhammaantii markuu mowqifka istaago mid kastaba markii goonnidii loo maxkamadeeyo muduci iyo mudaacali markaan cidi maqnaanaynin madaxweynaheenniyo hadduu muuse kula doodo maansadan mariidaysanaad miidhiyaa gelisay madashuu ka yidhi sheeg haddii meliku weydiiyo maadaa markhaatiyo caddayn maandhe heli doona, maadaa markhaatiyo caddayn maandhe heli doona. madadaalashaan waday miyaa magane kaa saari, ma mucaarad baa maalintaa muruq ku siinaya, masabididdu waa kaa mamnuuc magaca diimeedi. malcuunkii iblays baan waqii shiikh ku maakumine muslim weeye madaxweynahaad mala hafraysaaye. waa maamulii dowladdiiyo muqaddamkeennii ma mutaysan cay iyo afxumo inaad u miistaaye. macbuudkaa u soo noqo xaq baa lagu mayuugaaye. inta aan midkiin geeriyoon waa maxsuul qorane orodoo musaamaxo ka dalab waa midh waajibeh, orodoo musaamaxo ka dalab waa midh waajibeh. tixdii manhaj halkaas ayay gonda dhigatay. insha allahu tacaalaa ilaahay dartii ayay anigana iga ahayd. ilaahayna xaqa ha waafajiyo abwaanka simbiririxday. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.